dhawaan ay ahayd markii agaasimaha wasaaradda ciyaaraha Somaliland ku dhawaaqay horyaalka tartanka kubadda cagta ee ka kooban 32 kooxood tartankaas oo laga soo xulay 28 kooxood magaalada Hargeysa halka 4 kooxoodna laga soo xulay gobolada kale ee Somaliland tartankaasi oo laga reebay magaalada Burco oo ah caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Qaranka Somaliland haddaba ku dhawaaqistaasi laga reebay magaalada Burco ayaa keentay in dhalinta ciyaarta kubadda cagta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco oo uu hogaaminayay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad maayirku sidoo kale qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ay kulan ku qaateen galabnimadii shalay hotel Nasteex ee magaalada Burco waxaana ku tilmaameen ka raabista magaalada Burco tartanka kubadda cagta mid aan cadaalad ahayn waxaana kamid ah hadaladoodii sida waxa uu yiri 28 kooxood oo reer Hargeysa 4 kooxoodna waa Somaliland oo kale dawladnimada Somaliland iyo ciyaartoyga Somaliland iyo muwaadiniinta Somaliland reer Hargeysa oo kaliya halkaas ka muuqanaysa cadaalad darrada meesha taalo wasiir boos waxaan leen yarkan deewa wuxuu ka mid yahay howlwadeenada wasaaradda aad maamusho hadalka waxaan u qaadanaynaa inaad adigu u soo dhiibtay raalina ka tahay 48 saacadood gudahooda hadaad kaga soo jawaabto waa wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda oo isaguna wasiirada funtoobay ka mid ah maalmaha ka mid ah annagoo Hargeysa joogno oo aan goob fadhino yaan wasiir ku xigeenkaana kala hadalay danaha dawladaha hoose iyo kabka yaga abaar hadalkii markaan isku celinay hadalku iigu jawaabay ballan baan ku qaaday inaan saxaafadda ka idhaa kan maanta agaasimahan fuuntoobay baan isagana raacinaya maradii gobol kamid iyo degmo lagu la kacay anigu waxa leeyahay qarankii oo dhan wax la yeelay dacwad baanu ka gudbinaynaa agaasimaha 24 saacadood ciyaartoygu kuwa dhabarkeega taagan way yimaadaan dawladda hoose wixii ciyaar ay qabanayaan oo dhan waanu garab taaganahay waa afxumo aad u geysatay gobolka Togdheer ama magaranaysa Jamhuuriyadda Somaliland si degdeg ah looga qabto Burco waxa way taana waa caasimadda labaad weeyaan waxaana u dhitirmayso haddii koobkii degmooyinka ahaa maxaa 28 Hargeysa siiyay cadaaladiisa agaasimaha guud waxa loo magacaabay agaasimo guud laakiin wuxuu soo arkay ama noqday isuduwii Hargeysa haddaad Hargeysa 28 siisay anana gobolada bari baan ku qaban doonaa gobolka Togdheer ciyaarahooda oo aad cadaalad laga waayo ee goboladan macsuumi doonaa bariyaad qadisay ninkani waa nin ku banjaray xilkii ma aha qof madaxweyne oo aad ku eegi karto ummadda waxaan leenahay maayarka Solteelko qaybta inaad qaadacdo qaybta degmadaada saami dheeraadkaada qaadatay maayar wanaad qaadacdo anagu ma ana qaadaneen manana geyneen xisaab xumada noocaas waxaanu sameynay maanta xisaabtan waxaanu yeernay fulinta waxaanu anagoo daba soconnaa hadalka agaasimaha waxaanu wareysanay ma leen la soo xiriiray maya ma yimi agaasimuhu maya maayar ma lagu soo hadlo arintaasi ma jirtaa maya taana waxaanu ka fadhinaa heer qaran madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland arrinka dabagalkiisa cadeyntiisa in loo diro dhanka kale saaka subaxnimadii dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ee magaalada Burco ayaa kulan saaka ku qabsadeen garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco Caalamka Stadium dhalinyarada qaabka loo qeybiyay kooxahaasi waxayna yiraahdeen laba qodob kaliya ka hadlaya madaxweyne marka 30 jirka ahayd waxaad ka dagaalantay aad qoriga u qaadatay waa cadaalad darrada xamarka carrisay madaxweyne maantana cadaalad darrada shalayta madaxweyne ka carartay qoriga u qaadatay ayaa maanta dhalinyaradan isku keentay 30 jir miidhan iyo wixii ka yar 24 jir miidhan madaxweyne waxa taasi cadeynaysa madaxweyne inaad imika cadaalad darradii xamar ay ka carrinay shalayto ay maanta Hargeysa u gudubtay oo maanta annaguna Hargeysa aan ku carrinayno madaxweyne waxaan taa ku darayaa halkan koobkan gobolada bariga Jamhuuriyadda Somaliland u dhacaya laascaanoodna waan ku qabanaynaa madaxweyne wixii galbeedana toodii halkooda ku qabsadaan madaxweyne boorame iyo wixii ka sheegay ku qabsadaan timi bari iyo galbeed iyagoon kala lahayn qabiil iyo qolo iyagoon kala lahayn koox iyagoon kala lahayn xaafad iyagoon kala lahayn dhammaan gobolka Togdheer wuxuu mid ka yahay madax iyo minjo si aan uga hadlayn cadaalad darrada weyn ee ka dhacday gobolka Maroodijeex ahna caasimadda gobolada galbeed wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland muddo waxay ahayd 27 sano ee Somaliland lagu dhawaaqay in aanu ka warsugnay 27 sanaba inay mar uu soo xasuusto caasimad ku xigeenka Somaliland waxaanu hore uga tirsanay haddaan nahay dhalinyarta gobolka Togdheer waxyaabo badan oo gobolada galbeed ay siisay hase ahaatee magaalada Burco ee caasimad ku xigeenka Somaliland ay meel u dhigi weyday intaaba waxaan lagu maaweelinay niyadan aanu ku dhisanaynay qofka madaxana maalintii codka naga doonayo uu nagu mijahaabinayay tii Somaliland bal laga dhawaaqay baa tiinay iska suga
maanta haddaba waxay gaadhay tan Somaliland baa lagaga dhawaaqay waxaana maanta la yiri kuma jirto Somaliland soo maaha sidii shalay toole Somaliland tan aanu kaga dhawaaqnay ayaanu mid cusub ugu dhawaaqi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxa uu xiriir baa loo magacaabay xiriir ay doorteen seerasiida Hargeysa iyo seerayada Hargeysa seerabiida Hargeysa waxa uu qabtay tartan khalad muu sameyn waayo dadkii u codeeyay ayuu tartan u qabtay gobolada galbeed bari oo dhan wuxuu siiyay afar kooxood buu siiyay waxaanu ku leenahay afarta kooxood aad siisay meelaha u soo martad weydee afar hablood Hargeysa ka jira kooxaha hablaasi annaguna mid cusub baan furaynaa hadii Ilaahay ka dhigay Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco